Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan ka hadli doonaa warar waaweyn oo kasoo baxaya Real Madrid kuwaas oo la xiriira suurtagalnimada in tababaraha caanka ee reer Portugal Jose Mourinho uu dib ugu soo laabto Santiago Bernabeu. Wararka ayaa sheegaya in heshiis hordhac la diyaariyay balse ay jirto lacag weyn oo ay tahay in Real Madrid bixiso si ay dib ugu hesho adeegiisa. Qiimaha lagu heli karo soo laabashada Jose Mourinho ee Real Madrid ayaa la shaaciyay. Los Blancos waxay isku diyaarinaysaa xil ciyaareed aad u weyn gudaha iyo dibadda garoonka, iyadoo kooxda reer Spain ay kusii dhawaanayso doorashooyinka madaxtinimada. Madaxweynaha hadda jooga Florentino Perez ayaa si weyn loogu saadaalinayaa inuu mar kale ku guuleysto xilka, isagoo soo bandhigaya qorshe hami weyn u leh oo ku saabsan mustaqbalka kooxda weyn ee Spain. Qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshahan ayaa in la helo tababare heer caalami ah oo awood u yeesha inuu si degdeg ah ugu soo celiyo Santiago Bernabeu guulaha Yurub iyo kuwa gudaha ah. Soo laabashada Jose Mourinho ee caasimadda Spain ayaa muddo dheer la hadal hayay, waxaana la rumaysan yahay inuu heshiis hore loo sii diyaariyay haddii Perez mar kale loo doorto madaxweyne halkii uu xilka ku guuleysan lahaa Enrique Riquelme. Benfica ayaa xaqiijisay in Florentino Perez uu damacsan yahay inuu magacaabo Jose Mourinho haddii uu ku guuleysto doorashada. Kooxda fadhigeedu yahay Lisbon ayaa shaacisay in heshiis dhammaystiran horey loo gaaray tababaraha caanka ah inuu si la yaab leh ugu soo laabto caasimadda Spain. Si kastaba ha ahaatee, howlgalkan ma noqon doono mid jaban, maadaama Benfica ay sheegayso inay ku kacayso heshiiskan 15 milyan ama qiyaastii 13 milyan si Mourinho loo fasaxo heshiiska. Hadda Benfica ayaa xaqiijisay inay tahay ujeedo adag ee Florentino Perez inuu shaqaaleysiiyo Jose Mourinho haddii mar kale loo doorto madaxweyne, iyadoo heshiiska la sheegay inuu horey loo diyaariyay. Mourinho ayaa horey 3 sano ugu soo shaqeeyay Real Madrid intii u dhaxaysay sanadihii 2010 ilaa 2013, isagoo caan ku noqday ku guuleysiga horyaalka La Liga ee rikoor jebinta ahaa. Tababarahan khibradda badan ayaa la sheegay inuu aad u doonayo inuu hogaamiyo mashruuca cusub ee ciyaareed ee Perez, wuxuuna horey u aqbalay shuruudaha shakhsiyadeed ee loo bandhigay. Haddii Mourinho uu yimaado, waxaa la filayaa inuu si weyn u hagaajiyo nidaamka iyo anshaxa kooxda. Santiago Bernabeu wuxuu dhexli doonaa koox ay ku jiraan xidigo heer sare ah sida Kylian Mbappe, Vinicius Junior iyo Jude Bellingham, halka Denzel Dumfries la rumaysan yahay inuu kusii jeedo caasimadda Spain. Maareynta filashada weyn ee qolka labiska Madrid waa caqabad uu si fiican u yaqaano tababare ku guuleystay koobab waaweyn oo Yurub ah, isla markaana Real Madrid kula guuleystay La Liga sanadkii 2012. Intaa waxaa dheer, magacaabistiisa waxay si weyn u dardargelin kartaa qorshaha suuqa kala iibsiga, maadaama ay jiraan bartilmaameedyo waaweyn oo ay doonayaan inay la shaqeeyaan isaga. Haddii Mourinho uu ku soo laabto Bernabeu, caqabadda ugu horeysa waxay noqon doontaa inuu carshiga ka tuuro Barcelona oo 2 xilli ciyaareed oo xiriir ku guuleystay horyaalka intuu hogaaminayay Hansi Flick. Waa warbixinta ugu dambeysa ee la xiriirta suurtagalnimada soo laabashada Jose Mourinho ee Real Madrid. Ma u malaynaysaa inuu Mourinho yahay qofka saxda ah ee dib u soo celin kara Real Madrid guulaha waaweyn ee Yurub iyo Spain? Fikirkaaga noogu reeb qaybta faallooyinka. Haddii aad ka heshay muuqaalka, ha iloobin inaad like saarto, subscribe gareyso channelka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta.